mudanahan oo maanta shir jiraayad ku qabtay xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in aanu jirin kulan ay dalka Imaaraadka Carabta ay ku yeesheen hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ee wadani iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. hadalkaasi uu hore u sheegay xildhibaan Salebaan Cawad Cali Bukhari oo ka tirsan baarlamaanka Somaliland. ku cadeynaya hadalkaas Bukhari horteed cid maqashay oo Somaliland ma jirto. kelmadda uu leeyahay inuu been abuuriyo mid kale in aan la intii safaray oo xisbiga wadani iyo hogaamiyihiisu galeenba intay mareen oo dhan waa la ogyahay wax qarsoon ma ahayn iyagiina way joogaan qolada kalena waxaan ka kulmay oo dhan waxa soo dhanba waxa u yihiin cadeyn inaan wax xiriira iyo wax kulana iyo aanay leeyahay kulan kana hogaamiyaha wadani waa nin maxaan ku raahdaa hogaamintiisa sagaalka sanadood soo hogaaminayay maxaan ku raahdaa golaha baarlamaanka marka wax u dhaaf iyo halka wax ka doondoon isagu ma yaqaan waa nin habdaqameedkiisu toos yahay oo aan leexleexad lahayn. xildhibaan Bukhari ayaa isagu sheegay in hoggaanka xisbiga wadani iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ay kulan ku yeesheen dalka Imaaraadka ayaa mudanahan waxa uu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal lahayn. Imaaraadka waxay kula shireen Xasan Sheekh ayay kula kulmeen ayagoo u sheegay inay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu Soomaali isu keeno waxa weeye nagala shaqeeyo naga warhaya taasoo markii dambe uu yiri gudoomiyuhu waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha koonfurta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kula kulmay maxaan ku raahdaa wadamadan khariijka iyo Abu Dhabi taasoo ah waxaan qabaa been cad oo aan maxaan ku raahdaa gabasho lahayn oo aan saliya raatoona lahayn inuu ninkaasi meesha iyadoo waliba la sooman yahay oo anagu sheekh baan u naqaanay maaratay uu rabadaan taasi been cad ka sheego gudoomiyaha Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.